halka waxa loogu jeedaa magac lagama yareeyo boqorada steelka ayaa kana kuul jooga marka waxa weey maanta waxaan joognaa magaalada Berbera duleedkeeda ah oo tuulada oo kamid ah Saxara oo naga baraatiisay Imaaraadka waxa laga qaban ka qaban karaa meesha Saxara weey joogeedu aad iyo aad buu qurux badan waxa badii baa ku taala marka waxa weey meesha waa leer macaan Saxariinada aanu safrinay aan u baahnay inaan sawir ka soo duulinayba waan joognaa maanta maalmaha ku nagu duwan tahay maal aad u qiimo badan weeye maanta wax aad u macaan yahay runtii waxa weey maanta boqorada steelka oo waxa weey magaalada Muqdisho nooga timid runtii waxa weeyaan waa horta farxad bay noo tahay noo timaado oo talabaad ah horta dadka waxa weey social media jooga waxay dhahaan waxaan yar bay nagu xantaan barnaamijkan waa barnaamij su'aalaha sax su'aalo fara badan ma aha nin barnaamij su'aalaha soo gudbiyo ma yihiin sax laakiin waxaan jeclaystay maadaama oo bulshada idinku xiran dhan walbaaba haatay dhan YouTube iyo dhan TikTok ba inaan su'aalo yar ka weydiino halka sax su'aalahaas oo maskaxdooda ka dhex guuxaya kulli wax badan ma soo qorin wax badan ma hayo si kaftan baan u guda geli doonaa sax su'aasha ugu horeysa aan idin weydiin doono iyo waxay isweydiinayaan dadka boqorada steelka magaalada Hargeysa ma waxay u timaado inay ninka haykal la dhaco ay isku yaacaan sinaaroskooda ka dhaco horta su'aal aad muhiim ah boqorada steelka ama Maria Hargeysa muhiimadda u timaado waxay ahayd marka hore iyadoo jeclayd inay ka timaado oo hubkeedu hay Hargeysa timaado ayaa runtii waxay ka heshay abtiyaaladeedu degan magaalada waxay jeclaysatay iyada abtiyaaladeena soo barato iyadana uu wacan tahay inay abtiyaalada barato ama dadka gacalkooda ay u dhow ay barato ayaa waxay u fududaatay inay Hargeysa timaado taasoo ah anagu aan barnaamijyada iska baranay horta su'aalkan dadka waan qabaa taasoo ah dadku horta kale saaxiib ma la noqon karin dad walaalo ma la noqon karin hadda adigaaga daawanayo waxa weey ama inaan hawo ma gabadha ama nin haw maanad yaraantaadii qof ama illa hadda maad wiil asxaab alla aqoon hadda inaan tahayna maad wiil asxaab noqon waxa jirta maalmahan dambe inuu social media noqday xaraadis dhamaantood waxa u taagan yihiin labada qof meel u dhaqaaqa in ay ka war doonaan waxa doonaysa ma hayno waxa doonaysa ma hayno oranay marka aan horta maxay leedahay iyadana aan ku soo dhaweyn horta waa dhawahay aad iyo aad u mahadsantihiin hadalka badan horta ay kala hadashay Ahmed hadalka badan ay kala hadashay dadkan waxa leenahay aniga halka waxaan ahaa dad asxaab dad asxaabta de kala laga yeelay laakiin dad saaxiibo dhab ah isfahmay noloshan waxa ku fiican isfahamka wada kasta uu gali karaa laakiin tan laga dhaxaysa waxa tahay dad isfaham oo asxaab ah oo saaxiibo ee asxaab yaadine tan kale hada ka hadho mid tan Hargeysa aan u imaaday waliga jeclaa horta Hargeysa amaado tan waliga ma safrin ba safkii ugu horeeyay wuxuu noqday Hargeysa marka qof ku leedahay Hargeysa oo saaxiibka ee amaanta aaminsan qof ku sanad waxa uu ma dhiibi kartid in aad u tagtid iska daayay ka sukane heekal ka sukoon familkayga degan xitaa kaliya ma safrin waa birtay la socotay goor familkeeda la socota ahay Hargeysa kala bartan waarab heekal in aan dhax ka soo qaadano waarab ka saaxiibkay waaye ninka haykal aslayd waa nin gaaban oo marka hore kaamirada kulubku soo tooyay laakiin hadda waa dhameystireen saba waa aniga liiga dheeriyay hadda waxaan leenahay aad u tiro badan ku guuxayeen waxaan rajaynaynaa in ay ku qanceen adiya meesha labada ku weydiinano bal magaalada Hargeysa ka sheekay kulay muddo aad u yar baad joogtaa suugeed iyo waxyaabaha aad la kulantay horta muddo aad u yar aan joogaa dhaqsiina ka tagano waa rajaynayaa arimo jira awgooda oo dhanka jaamacadda ah Hargeysa horta ma waa London half London aan dhigi karaa waa Canada waa America qof Hargeysa joogo inuu xatay wadan shay aad uma baahno Hargeysa waa dhul qabow aad u qurux badan buuro leh anigoona xiisadeeda ideenin alaabanoya laakiin insha Allah bilooyin kadib inaan ku soo laabtaa rajayna Hargeysa laga ma sheekay karniyo Hargeysa cid walba u furantay taada kala hal mid ah dhaha waxa laga aaminsan yahay Hargeysa waxa laga aaminsan yahay ma ahan يعني عد ولبو ما أنت وهرجيسة عن أركن وحاكو يرجلنا ما أنت أنا قاعد أحتاجن أو كوباشالا حبت هذا أجوجو وحاكو يرجلنا إنا إمادي يعني صبر قدم وبيحكي كرا لكن تدك جوا ضد نصبة وتتجب مع هذا الله يمرك مال وأركي حتى قفك وحاسة مثلا استقانين مركزات كانت تدو حوايا سيفي عن بربرة بالجو جذا كورة إنك استوي ما أنت عيتها قبو لكن واحد ترتمر أي كلها تايد حالته تكون على نهاية مقدشو أنا كاسي عليه أنا حلي جاس قبو بيا حالته صوت تارجيز مركاي ما هذا بحبسكم مليبو إن قدام يعني شيء أجوجو مركز تجاك كذا حرنا إن قبو جد ولا قبسوا لكن هذا واني جت في اليوم ما نت عادي ما دام على العصر يعني ماشان هنا سؤال كويديو مثلا قلنا عاش كوادو بدا حيد هنا دليرده ماشان عروس ودغن دونان امس اي يا
aroos أنا أتانا إيه كسرنا شكاس كلام حدانا هددو هددو أنا حدانا شكاس كلام هددو anagana waa sheeko kala dhadha haykal adiga waxaan ku oranayaa boqoradu in badan lahjadan way ku wareersanaydeen iyadoo waxaan arkay TikTok waxyaaba badan ku lumaysa wax badan ma ka faahfaahsiisay horta laajada badan in badan waan ka baray waxa weeye laakiin kasta anaga yaqaan sirkeena xoogaa maalin kale meel baan joognay waxay tiri baaquli soo qabo baaquli aan garanaya wiliga ma maqlay ya abaarman yaa ku kasii weydiiyay baan markii daas dhaafiyay markii dambe saxda miya waan dawas dhaafiyay يعني waxyaaba inta muhiimada in la isfahmaa muhiima inaa ku fahmnaa dhici karto laakiin ayaga markuu ilaa Allah waa fahmaa qof walba horta qofkaad isku afbadataan inaad isfahantaan baa teeda kalmida hore loo dhahe oo sheekhna aan ka maqlay inay sax tahay in kala sheegi kari dadku waxa la inta aan nafta la gelin ka hor ruuxdooda ay istaqaani yani maanta daa aragtid qof ay isfahmaysin dad kale kaaga duwan waxa u saleeyaa aniga warkaas inuu sax yahay ani asiga ruuxdeena hore isku taqaanay waxaan weydiinaa laba su'aal iyo hal su'aal oo tii ugu dambeysay si fiican maadaama hadalkeenu dheeraaday su'aasha ugu dambaysa waxa weeyaan ma isleedihiin mustaqbalka niyo dhalinyaro isku soo baxaysaa tiidiin dhalinyaro ay isla jeclaan look at my face dhalinyarada social waxaa jirta horta hadalkaas ee kala u daayaan horta waxa weeyaan وانا غورجوج انا نبانahay maanta dhalinyaro ah sidoo kale غورجوج baanahay haduu calaf ku dhaco ma sheegin mise waxa way takaan uusan fikirkeygu yahay aaminsanahay saano dad asxaaba dad walaalo ah dad wax isla garab taagan hadii wanaag noqoto hadii xumaan oo kale waan ka qabanaya waxaas kuma wanaagsana hadii noqoto wanaag waxaas ku wanaagsan yahay dadku waxa weeyaan wixii isbacano wanaagsan aan isla jeclaano waxaad isleedahay adiga maadaama hadalkan aad soo koobayso waad isqaadan kartaa mustaqbalkooda iyo arooskiina waa ka soo qayb kari calafka abdeene calafka abdeene jaceelkan waxaa jirta mataqaanaa waxa adi aad jecesha aan helaynin laga yaabay jaceelkiin inuu suurtagelin inuu suurtagalo haddaad jeceshiin inaa macnaha soo duceeyo calafka sooma saas weeyaan taas ku hayn xataa kuma fikirno wallahi sababta wanaaggeega aan isku hayno waxa weeyaan fikirkaas gelino xaqiiqatan marka la eego waan isdhiiri gelinaa waxaas kuma wanaagsana waxaas ku yahay mee waxaan leenahay saaxiibtinimada hawaarto anigu waxaan leeyahay dhalinyarada qurux badan baa waxaan rajayna dadkina tusaale u noqono waxaan leeyahay dhalinyarada qurux badan baa tiin guulaysta barnaamijkan kale barnaamij su'aalaha ma ahayn laakiin su'aasha koowaad anigana wareerisay bulshadana wareerisay tiin koowaad hadina qancina rajaynina anagoo youtube-ka si fiican fadhiiso aniga waxa weeye youtube Axmed FT ana ka hawliyay oo maanta igu horeyso aan ka soo muuqdo aad iyo aad aniga Axmed FT magaalada ku nool lahayn hadana ismaarag dad badan oo xajir muqdisho aad soo joogan aan is arkin isku aragnay magaalada balaaranay maanta waxa salafi ah laba qof aad u maamuus badan inay ag fadhiyaan maariya noolaada nolosha waxa weeyaan waa socotaa ilaahay maalin kale